maanta waxaan kala hadlayaa shicibweynaha reer Djibouti oon ka wargelinayaa arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada madaxda Djibouti oona arrimo loo dul qaadan karin ay tahay dhowr kaartiyo maaragtay ka kooban magaalada madaxda oo waliba maaragtay qaybta balbala iyo maanta arrimo foolxun ay ka dhaceen waxay gaadhay awal hadii caruuruhu ay dikadaha ay maaragtay shaako gubayeen oo maaragtay arrinkaasi maaragtay dul qaadanayay maanta arrin halis ah dhacay in aqaladii dadka ay lahaayeen shicibku ay lahaayeen la gubo arrinkana arrin dawladdu ay dul qaadanaysa maaha waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Djibouti in ay dhimasho timiday sida wararkan ay soo gaarayay ay maaragtay dad ay ku dhinteen ku geeriyoodeen meesha waxaan leeyahay dadka horta Allah u naxariisto kuwii ay ka tageen simiriban Allah ka siiyo waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagax tuurka ka bilaamaya ee maaragtay caruur ay ku koobneen ee lagu daba jiro waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan waayo dawladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyo ku qabanaysa arrinka